xaaladda magaalada Laascaanood ayaa sii holacday iyadoo ay saaka halkaas ka dhaceen dagaalo culus. aroortii hore ee saaka ayaa ciidamo hubeysan oo muddooyinkan ku sugnaa gudaha Laascaanood waxay weerar ku qaadeen halka lagu magacaabo Xamdi oo saldhig u ahayd mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ku sugan Laascaanood. sida la socotaan waxaa si weyn loo sugayay go'aamada ka soo bixi doona garaadada dhulbahante ee ku shirayay magaalada Laascaanood waxaana saaka soo baxay go'aamadii muddooyinkan la sugayay kuwaas oo aan wax weyn ka bedelin xaalka magaalada Laascaanood oo maanta dagaal qurqurinaysa. dhinaca xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay soo weerareen kooxo argagixiso ah oo ay soo abaabuleen garaadada nabadiidka ah ee ku sugan Laascaanood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Soomaaliland. sidoo kale waxaa la arkayay garaad jaamac garaad cali oo dhex taagan caruur iyo dumar oo ku baaqaya inay dagaalamaan oo hubka qaataan. walaaladii lagu laynaya halka ee amarka sugaya waa furay dagaalka gala. halka dhinaca kalena garaad jaamac garaad Ismaaciil uu sheegay in dagaalka la joojiyo haddii la idin soo weeraro inay istifaacdaan diinta iyo sharciga iyo islaamnimada oo ku shahay cidna ha weerarina laakiin haddii la idin soo weeraro waa inay istifaacdaan oo maatadii ubadka waxa weeye iyo dadka waxa weeye la ilaaliyaa intaasaan ku baaqayaa oo aysan magaalada Laascaanood xamili karin dagaal ka dhaca waqtigan waxaana muuqata inaysan isku aragti ka ahayn dagaalka socda garaadada ku sugan Laascaanood. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliland Ina Koore oo hadda la hadlay warbaahinta ayaa yiri ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo u turaya shacabka ku nool magaalada Laascaanood waxa ay kaga jawaabeen weerarkii ay ku soo qaadeen kooxaha argagixisada ah isdifaac oo kaliya. ilaa iyo hadda ciidanku waxa uu ku sugan yahay xeryahooda ilaa iyo haddana waxa ay ku jiraan difaac weerar inay qaadaan diyaar uma ahan. sidoo kale dagaalkii maanta ka dhacay Laascaanood waxa uu geystay khasaare kala duwan iyadoo aan ilaa iyo hadda la soo xaqiijin dhimashada iyo dhaawaca saxda ah ay kala gaaray labada dhinac. marka la eego xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Laascaanood waxaa muuqata inay faraha ka baxday oo xilligan ay soo xirantay wado walba oo lagu wada hadli lahaa iyadoo ay Soomaaliland markaan xooga saarayso sida ay gacanta ugu dhigi lahayd magaalada. waxaana uu afayeen u hadlay Soomaaliland sheegay inay ciidanka qaranku ammaanka magaalada la wareegeen taasi oo muujinaysa sida ay Soomaaliland ugu ooman tahay inay gacanta ku dhigto amniga magaalada Laascaanood. waxaana saacadaha nagu soo aadan dhici kara wax walba iyada oo dagaal la filan karo. dhinaca kooxaha ku sugan gudaha Laascaanood oo sida muuqata uu maanta dagaalka jab xoogani ka gaaray waxay isku diyaarinayaan dagaal kale oo ay ku qaadaan ciidanka Soomaaliland iyadoo ay garaadadu dhiirigelinayaan ciidamada halkaasi ku sugan ayaga oo u tilmaamaya inay dagaalka sii wadaan. sidoo kale dadka caanka ah ee ku dhintay dagaalkii maanta ka dhacay Laascaanood ayaa waxaa kamid ah afgaab oo kamid ah jamhadda SSC waqti dheerna u dagaalamayay qadiyada Khaatumo State iyo SSC ahaana nin sumcad ku dhex lahaa ciidamada SSC ee ka dagaalamaya gobolka Sool. sidoo kale dhinaca xukuumadda Soomaaliland waxa ay sii wadaa qoraaladeeda ku aadan inay gobolka Sool qabsadeen kooxo argagixiso ah iyada oo waqtigan u muuqata inay gobolkaasi ka ridi doonto dagaalo xoog leh oo looga saarayo waxa ay ugu yeedhay argagixisada. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxaana isha ku hayn doonaa dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda annaga oo halkan idin kula wadaagi doonaa.